السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعن داوديال ومركلة يبرنامج كيني يفتين شلبا warbixinta maanta waxaad ku daawan doontaan burburka qoyska iyo saameynta uu ku leeyahay ubadka yaryar. marka lamaanuhu ay kala tagaan, saameyn intee leeg ayuu ku reebaa ilmaha burburka ku yimi qoyskaasi. dhibane isagu si dhaba u arkay xaaladan ayaa waxa uu ka warbixin doonaa bal dhibka ay ku hayso iyo dareenka isagu uu dareemayo. waxa kale warbixintan aad ku daawan doontaan waraysiyo kala duwan oo aanu ka qaadnay dad xiriir dhow la leh arrinkan burburka qoyska iyo saameynta uu ku leeyahay ubadka. waatan warbixintii ee daawasho fiican. qoysku marka uu burburo ee aabbaha iyo hooyadu kala tagaan, marka ay carruur isu leeyihiin way ka culays iyo warwar badan tahay marka aanay carruuri jirin. waxa dhacda in marar badan la arkay in carruurta ay la soo darsaan xaalado kala duwan, mar ay hooyadu qaadato ama uu aabbuhu qaato, mar ay qaybsadaan, mar qaraabada loo kala qaybiyo, iyo mar ay meel dhexe ku dhacaan haddii ay daryeel waayaan sida wiilkan yar ku dhacday. waa la isku qabsadeen. waxay isku qabsadeen idanka anaa qaadanaya iyo qaadinay sidii anaa dhalaha qaadanaya. saas la isku qabsadeen. markii la isku qabsadeen ilbaa ku dhacdo waxa la keenay Hargeysa. hargeysay aan ku koran ku weynaaday. markaan ku korayna waan ka yar dib jiray. kabacdi waxa la keenay xarunta Maqdoola. Cali Yare ma aha magaciisa saxda ah ee waa magacaan u bixinay. wuxuu tusaale nool u yahay carruurta ay dhibtu ka soo gaadhay burburka qoyska. waxaana uu Cali Yare hadda ku jira xarun carruurta darbijiifka ah lagu dhaqan celiyo oo magaalada Hargeysa ku taala. marxaladda noloshaada aduu ku sheegtay inaad dib jirtay, halkee tagtay, maxaad soo martay? waxaan tagay ciidamada, waxaan ku jiray dooxa. dhibaato weyn oo aad u badan oo soo maray oo nabaraan khatar ah way ku dhaceen. intaasaan soo maray. dabeeto xaruntada ayaan imi markii dambana. way adigu dareenkaaga burburka qoyskiina ku dhacay xanuun intee leeg buu kugu hayaa iyo dhibaatada kale aad soo martay? dhibaatada qoyska ku dhacay aniga dhibaato weyn buu keenay oo may fiicnayn inay saasi dhacdo, laakiinse wax kasta waa la qadaro way dhacday. dhibaatadii markaa dhibaato soo noqonaysa maaha oo sida xafiiska shareecada tawfiiq oo u shaqeeya qaab maxkamadeed kuna shaqeeya shareecada islaamka oo ku taala magaalada Hargeysa ayaa ka mid ah meelaha ay isla tagaan lamaanaha isfuraya. waxaana xogaanu maxkamadda ka helay ay cadaynaysaa in muddooyinkii u dambeeyay uu kor u kacay qoysaska isfuraya, waxaana arrintani ay iftiiminaysaa in burburka qoysku sarreeyo. mar aanu wax ka weydiinay tirada qoysaska isfura, waxa ay noo sheegeen in celcelis ahaan bishii ay isfuraan 20 qoys. waxaana ay tusaale noogu soo qaateen dhammaadkii sanadkii hore, gaar ahaan bilihii 9aad iyo 10aad, inay isfureen qoysas gaadhaya 43 oo kala noqonaya bishii 9aad oo 18 qoys ah iyo bishii 10aad oo 25 qoys ah. Sheekh Cismaan Cali Xuseen wuxuu ka mid yahay xafiiska shareecada islaamka tawfiiq, waxaana uu sheekhu muddo dheer oo 40 sano ka badan ku howlanaa xalinta khilaafaadka qoysaska. wuxuuna sharaxayaa marka qoys dhisnaa burburo ee uu kala tago dhibta ka dhalata. cidda ugu badan u saameynaya waa carruurta. ilmahan xalita wuxuu joogay reerkoodii oo dhan oo dhisan, aabbihii iyo hooyadii oo wada jooga oo nool, farxad ku wada nool. waa wuxuu barayaa kooda wax garanaya ayay ugu daran tahay inay ogaadaan in aabbahoodii hooyadu isku dhaceen oo isqabteen, bale dadku ay u sheegeen inay kala tageen. waxaa kaloo taabanayaa markay labada waalid carruurta isku qabsadaan ee kii carruurta la raacin lahaa uu dhexdooda mura ka yimaado, carruurtii iyagoo ooyaya, iyagoo qaylinaya, iyagoo qalbi jabay aad aragto. saa daraaddeed waalidka qaarkood amba siiba ragga annagu ma ogolaano horta xafiis ahaan in naloo keeno amba ay noo yimaadaan laba waalid oo carruurtii wada xaaladda is hayaan. qadcan ma ogolaano, حتى هذيك القاضي بيركل كل قاتان لكن وحنا مرينا شرع الإسلام كهالك مريسة المهني عدوا لنا ولا لها لكن عدوا بدون سامين يا عروبتي وين المي أبيه بس وين ترى أبيه بواية
amba hooyadiiba waayaya marka dareemaysa caruurxumada ugu badan caruurtay gelaysa waxaa burburka iyo derbi jiifkan iyo caruurtan dayacan iyo waxaan adalkay soo dhammi waxay ka soo jeedaan in badankooda qoysas burburay intooda badan saasay noqonaysaa waxaa jira dad dadaal iyo isxilqaan fara badan ku bixiyey sidii ay uga howlgeli lahaayeen wax ka qabashada iyo yareynta burburka qoyska iyo saameynta uu caruurta ku yeesho waxaana ay sameeyaan daraasado ka hadlaya baaxadda burburka iyo saameynta uu reebo waxaana dadkaasi ka mid ah jamaaludiin cabdilkariim cawke oo ah la taliya arrimaha qoyska ah oo ka tirsan akaademiyadda aflax ee tababarada iyo hogaaminta oo ku taala puntland waxaanu kula kulannay magaalada hargeysa mar uu howlo shaqo u yimi waxa aan weydiiyey bal inuu isdul taago saameynta uu burburka qoysku ku leeyahay caruurta burburka qoysku wuxuu saameeyaa hooyada iyo aabbaha iyo ilmaha yaa ugu saameyn badan ubadka ugu saameyn badan maxaa yeelay isaga waxa waaye awood uma leh dadkan awood bay ku wada joogeen iyo nolol laakiin isagu go-aankan wax ta'fiira kuma lahan saameyn go-aanka kuma u lahayn sidaa darteed ilmahan yarkaaya ubadka ah ayaa ugu saameyn badan caruurta waxaa lagu arkaa mararka qaarkood mashaakil fara badan waxaa u horeysa cuqdad waxaa arkaysaa ilmihii isagoo xariif ah iskuulka dhiganaya tacliintiisa fiican tahay xaaladiisu maasha allah tahay haddana cuqdad buu qabaa wuxuu u qabaa in ma garanaysaa wax ka maqan yihiin ilmihiina wax ka maqan yihiin ayuu maaragtay u arkaa wuxuu dareemayaa mashaakil nafsi ah loos wax la dhaho ilma nafsiga lagu loos waxaa la dhahaa ama carabiga fiqdaan lagu dhaho waxaa ka maqan qofkan wax naftiisu ay u baahan tahay uusan kabi karin labadii qof oo kala tegay ma dareemi karaan laakiin waxay culimmadu dhaheen raadka cuqdada aad bay u sarreysaa haddii tusaale ahaan uu isagoo xariif ah ilmo kale la sheekaysto oo uu u faanfaano wuxuu leeyahay weligaa wuxuu qabaa cuqdad ah inuusan ilmahan kale weligii gaari karin maxaa yeelay ilmahan waxay haystaan aabba iyo hooyo isjecel waxaa lagu arki karaa hoos u dhac dhinaca waxbarashada marka uu marayo dugsiyada dhexe waxaa inta badan uu ka fekeraa inuu soo celiyo noloshii ay ku wada joogeen aabba iyo hooyo waxaa ilmaha lagu arki karaa mashaakil nafsiya markaan leeyahay qarow baa ka mid ah waxaa lagu arkaa inay qarowaan oo ma garanaysaa qarow waxaa la dhahaa riyoodaan riyooyin muscij ah oo dhibaato badan waxaa mararka qaarkood hurdaxumaa lagu arkaa waxaa dhici karta mararka qaarkood inuu samaysto saaxiibo xunxun oo uu la sheergareeyo la wadaago mushkiladan uu dareemayo waxa uu aaminsan yahay inuu xaq u lahaa aabba iyo hooyo isjecel inuu la noolaado taasna uu waayay la-aanteedna uusan wax guula gaari karin marka uu arko waalid caruurtiisa la socdo wuxuu xasuustaa noloshii hore uu soo maray wuxuuna tamaniyaa inuu u noqdo ilmahaas wuxuu isu arkaa qof aan muhiim ahayn caruurta furiinka la kulantay waxaa maraan maraaxil badan oo ay ka mid tahay baqdin baa ka mid ah wareer baa ka mid ah mustaqbalka ka haysta leeyihin maxaa noqon doontaa haddaa hadda horumar samayso yaa kaa bixinaya oo kale waxaa dhacda in la isku tuurtuuro noloshooda mararka qaarkood baahiyaha waxbarasho iyo nololeed mararka qaarkood wuxuu ku khasbanaadaa inuu la noolaado dad ehelka ah oo aan ma garanaysaa waajibkii u gudanayn sidii la rabay runtii ilmaha wuxuu dareemayaa qariibnimo culimada nafsiga waxay leeyihin qariib hooyuu la joogaa laakiin qariib wey maxaa yeelay wuxuu og yahay gurigiin wax ka maqan yihiin maxaa yeelay markuu arko gurigii markii aabba ka tago oo arka gurigii aabba inuu ka maqan yahay noloshii inay isbedeshay wuu fahmaya war 2 sano hadduu jira xataa wuu ogaanayaa that something wrong in wuxuun khaldameen wuu dareemaya waxaa lagu arkaa ilmaha la qabsiga nolosha kala qaaran uu la joogo midkood way ku adkaanaysaa tusaale ahaan hooyuu la joogaa hooyada way ku tamarudaan wiilal hadday yihiin way ku tamarudaan maxaa yeelay aabba adaa ceyrshay ama aabba waa kala tagteen wax kaloo meeshan ka soconaya ma jiraan ilmaha divorciga iyo furiinka mara waxaa ku bata drop outka ardada tacliinta ka hadha aad bay u bataan waxaan baxthi aan ku sameeyey aniga shakhsiyan ayaan waxaan ku wareystay 200 oo arday 70 ka mid ah waxay ahayd divorce reerkooda way kala tageen xaasas aabbahoodii hooyada way kala tageen 70kii qof ayaa haddana waxaan kusii sameynay research tacliinta iyo mahaaraadka nololeed ay qabaan waxaan aragnay ardadaas 55% 70ka arday halfkood ka badan 40 ka mid ah inay ku liiteen tacliinta wuxuu ardaygu ilmahan aabbihi hooyay kala tageen wuxuu dareemayaa dembi kala taga waalidkaa sidii inuu isagu qayb ku lahaa ama se uu badbaadin karay uusan badbaadin waxaa la dareemaa qaybsan niyadiisa ah iyo nafsiyaadkiisa ah uusan awoodin inuu midna qalbigiisa ka jaro mid kasta qalbigiisa wuu la jiraa haddii marka hooyada iyo aabbaha midka uu la nool yahay uu kan kale u caayo waxaa kusii dhacaya mushkilad badan ubadka da-da kuraynimada ku jira ee da-diisu 12-18 udhexaysa ayaa ugu nugul dhibaatooyinka furiinka wiilasha ayaana ka khatarsan runtii gabdhaha dhibta uu jamaal cawka ka sheekeeyey sidii aad arkayseen waxa ay marakac u tahay sida ay wax ugu dhaceen caliyare si
weliba si dareen leh aada ugu dhugataan dhibtaasi ayaan waxa aan weydiiyey. bal dareenkaaga iga sheekee markaad aragto ubad adiga kula mida oo hooyooyinkood iyo aabahood la nool oo adiga intaa kugu dhacday aanay ku dhicin, maxaad dareentaa? hooyadood iyo aabahood ay la nool yihiinoo si fiican u koriyaan dee waxaan dareemaa dareen weyn baan dareemaa, laakiinse dareenka aan dareemo waxba kama soo qaado ya oo dee wax iska dhacay bay hore u dhacay bay ahaayeen. iminka hooyo aaba halkay ku kala nool yihiin, maxayse qabtaan? iminka aaba wuxuu ku nool yahay miyi, hooyana waxay ku nooshahay daame sokadeeda. hooyo aaba markaa reero kala yeesheen miya? reero kale leeyihiin labaduba. inaad ii cabirto maxaad dareemi lahayd, su-aasheedu waxay noqonaysaa maxaad dareemi lahayd haddii maanta gurigiinni uu dhisan yahay, aabiyo hooyo ay wada joogaan oo aad gurigiinni kasoo toosiso, dareenkaagu sidee buu noqon lahaa? dareenkaygu wuxuu noqon lahaa dareen fiican buu noqon lahaa oo siday qeyrkay ay u horumareen baan u horumari lahaa. qoyskuna qoys jiro fiican buu noqon lahaa haddaanay saas dhicin, laakiin way dhacday iminkana saydu saas noocaas bay imika. haddiiba ay ka fursan weyda in la badbaadiyo qoyska burburaya ee kala tegaya oo ay caruurina jirto, waxaa jira qaab caruurtaasi kaga badbaadi karaan culayska kaga imanaya waalidkooda kala tegay. runtii horta marka horeysa waa in la mariyaa sida sharcadu ogoshahay. caruurta hadday yarar yihiin waa in hooyada la siiya, abbana masaarif looga qora. annagu marka u horeysaba nin iyo haweenaydiisii oo soo kala cadhooday oo marka u horeeyaba kuu yimi warqad toos uguma qoro. waxaanu khasab kaga dhignaa labadaba ehelkooda inay joogaan, waliba dadka ugu dhow ee ka damqanaya sida aabbaha, walaalka, adeerka iyo ehelka cidda ugu dhow ee mas-uulka ee xilkaskaa wayna soo kaxaystaan. waynu weydiinaa markaa waxgaradka iyo waayeelka la socda inay xal labadan qof u raadiyeen iyo in kale. haa waa la kabi karaa, laakiin waxaa lagu kabi karaa iskaashi aabbaha iyo hooyada kala tegay dhex mara. dadkeennan waad ogtihiin markii ay kala tagaan haddii la arko iyagoo carruurtii maslaxadooda ka shaqaynaya waxaa la leeyahay way israbaan, way isdoondoonayaan oo waxaa yani qaab taban oo khaldan ayaa loo fakerayaa. carruurta waa laga ilaalin karaa qeyb ka mid ah saamaynta burburka qoyska, lagama wada ilaalin karo inkastoo aysan marnaba suurtagal ahayn in laga wada ilaaliyo dhibaatooyinku dareemayo. haddana haddii ay waalidku iskaashadaan way ka samata bixin karaan mashaakilka inta ugu saamaynta khatarsan. inay muujiyaan baa u horeysa heshiiskooda ku aadan mas-uuliyadda barbaarineed oo ay labadoodu qofba qofka kale inuu xiriir fiican la leeyahay muujiyo. aabbaha oo kale hadday hooyada la nool yihiin inuu booqashada ku badiyo, inuu ilmihii u sheekeeyo, inuu weekendiga saaro, inuu la sheekeeyo, inuu ka farxiyo, hadiyada u keeno. sidoo kale inuu waqti fiican la gutaan ilmaha iyadoo mid walba la qaadanayo waqtigiisa. aabbahana waqti inuu la guto, hooyadana waqti la guto, lagana ilaaliyo in looga sheekeeyo axdaaftii furiinka iyo dhibaatadii dhacday. maadaama oo sheekh cismaan iyo jamaal cawki haba kale muddo dheeraadaan ay muddo ku soo jireen arrimaha la xidhiidha xalinta khilaafaadka qoyska iyo wax ka ogaanshaha dhibaatooyinka salka u ah iyo kuwa ka dhasha qoysaska burburay, ayaan mid kasta gaarkiisa u weydiiyey dhacdo xusuus iyo saamayn ku leh, waxaana ay ku jawaabeen. tusaale ahaan arday aan la talinayay ayaa wuxuu igu yidhi waxa ay gula talisay wax macquula weeye, waa arrin aan qaadan karo, laakiin ma ogtahay hooyaday aabbahay way kala tageen, hadday kala tageenna ilaa ay isku noqdaan guul ma gaari karo, saasay aaminsan yihiin. aad bay wallaahi burugo u leedahay iyo calool xanuun. waanu sheegnaa aabbayaasha oo marka hore waxaanu dhahnaa nin yahow cidda aad ereysaa maaha gabadhan oo keliya, waa kuwan ayaa tala kaaga baahnaa. kuwan hooyadood cid u dhaantaa ma jirto, cid walba hooyadood baa uga naxariis badan, waana siday kaaga xaqnimada badan tahay carruurta. sharcigu haddii la furo iyo haddii aan la furin intaba uu siiyey iyo ilaalintii iyo xadaanadii inay leedahay. runtii qof kastoo muslimo dareen lihi ama damiir wanaagsan lihi waa dareemayaa waalid caruur labadoodii waalid ay kala tegeen. odayaasha iyo madax dhaqameedka Soomaalidu waxa ay xilli kasta dhexda u xidhaan badbaadinta qoys burburaya si haddii ay caruuri jirto aanay saameyn guraacani ula soo darsin. waxay dejiyaan qoys burburi gaadhay iyo mid burburay labadaba. suldaan maxamuud xaaji cabdilaahi xirsi ayaan weydiiyey isaga oo waayo aragnimadiisa ku dabaqaya saameynta uu burburka qoysku ku leeyahay caruurta. xagga qoyska iyo caruurta markaynu nimaadno burburka iyo saameynta uu ku leeyahay waxa weyn caruurtu way darxumoonaysaa. waxa dhacda caruur badan oo aabahood aqoon, waxa dhacda caruur inta aabahood ka haystay
aan aqoonin hooyadood waqtiyada qaarkood waxaa dhacday dee inay ay ku sigteen inay isguursadaanba labadii carruur ahaa ku kala koray laba meelood marka waxa weeyaan arrimaha cuqdadna way ku beertaa cuqdad nafsi aabbihiin baa idin tuuray ama hooyadiin baa maalintii la kala tegey cidla idinkaga tagtay ama aabbihiin baa cidla idinkaga tegey taasina saamayn bay ku yeelatay oo qoysnimadii iyo hiddihii wanaagsanaa iyo dhaqankii iyo muxubbadii iyo isjacaylkii meesha way ka saartay adigu ay aragnimo aad soo aragtay miyay jirtaa la kulan way jirtaa waxaan soo qaadan karaa aniga walaalahay ayaa waxaa dhacday in dee la soo koriyey sidii dee dhammaan laynoo soo wada koriyey annagana loo soo koriyey dabeedna waxaa dhacday iyadoo markuu reeraystay haddana ilmihiisii waa bahayo koriyey ilaa in xaasis jallaha ka waraabiye oo ilaa maantana uu kii saddexaadna sii guursaday oo markaad imaka eegtaad u fiirsato aad odhanayso marnaba mas-uuliyad iyo dhaqan iyo wax salaysan qofkan uma muuqdaan ilaa iyo hadda taasina dee way jirtaado qoys walbana dee lama soo koobi karo hareeraheenna haddii aynu u fiirsanno suuqan unbay taaltaallaa arrimaha rawaada laga sameeya agteenna nunbay yaalyaalaan meel fog laga dayi maayo marka waxay la tahay in intaasi kaaga filan tahay walow saamaynta uu qoyska burbura ku leeyahay carruurta aan gebi ahaanba la joojin karin iyadoo waddankeennuna uu ka sii xag jiro ayaa haddana waxaa lama huraana in laysku howlo si kasta oo loo yarayn kara dhibtaas dhammaan dhinacyadii aan la kulmay ayaan weydiiyey siyaabaha wax looga qaban karo saamaynta burburka qoysku ku leeyahay ubadka carruurta furiinka la kulmay waa inaan marnaba hortooda waalidku iyo qaraabadu uga sheekayn mashaakilkii dhacay mararka qaarkood waxaa arkaysaa ilmahan waayo ilmo hebel wey laba dhahaya laakiin waxaa la dhahayaa ilmahan aabbahood baa nacay kanaa jirka ilmihii marka meeshii mushkilad laga badbaadin lahaa mushkilad kale oo bahdil ah baa lagu sii kordhinaya marka dowrka ehelku aad buu muhiim u yahay hadday caqli leeyihiin oo fahmi karaan waxaa la rabaa inay ka ilaaliyaan ilmaha problemka furiinka dhac in ilmihii ay sii baaba'aan maxaa yeelay mar kasta ilmahan iyo qoyskan burburay ilmaha muhiim hadda ah in iyaga lagu dadaalo oo iyaga maadaama aysan dembi ku lahayn laga badbaadiyo dowr muhiima weeye ehelka uu ilmuhu la nool yahay ayaa mas-uuliyadda ugu badan saaran tahay waxaanu horraysiinaa haweeneyda xuquuqday lahayd meher bay yeelanaysaa nafaqadii cadadbaxay yeelanaysaa waxay yeelanaysaa mutca waxa la yidhaha amba bixin bay yeelanaysaa waxaa kaloo yeelanaysaa xadaanadii carruurta inay carruurtii mas-uul ka tahay lagu masruufo meel ay digtana inay hesho aabbihiiba intaba lagu yeelanaya mas-uuliyadda cidda qaadaysa waa aabbaha carruurta waxaa lagaga yarayn karaa marka koowaad in la sameeyo meelaha khayrigaa in la badiyo ee carruurta lagu dhaqaalaynayo ee noloshooda iyo naftooda iyo niyadooda soo celin karayso oo loo sameeyo hanti iyo rasalmanti ay ku degaan oo dibudejin lagu sameeyo ayay aada ugu fiican tahay mid xukuumi ah ama ha noqoto mid khayriyaho shicib oo ganacsatada iyo dadka waxhaysta iyo dadka hantiilayaasha ee dadka caqliga u saaxiibkaa ee ilmaha yar waxa ku dhacaya ay damqayaan ama diin ahaan ha u saameeyaan ama caqli ahaan ha u saameeyaan ayaa loo baahan yahay inay isu tag sameeyaan inay badiyaan dhulka khayriga lagu xanaaneeya ubadka ayaa aad iyo aad halbowle ah oo muhiima oo aan ku talin lahaa dee xukuumadduna waa waxa dee dadweynahaba marka hore ka wada mas-uul waxa weyan dadkii ka mas-uulka cayaan tahay in wax u dhiibanay marka iyagana xil weyn baa saaran dabeedna waxa weeyaan dadkaasi inay is wada kaashadaan xilku saaran yihi salaadiinta dhaqanka ha noqoto culimaa udiinta ha noqoto ganacsatada iyo hantiilayaasha ha noqoto xukuumadda waa in dabeedna loo gurmado qoysaska caynkaasa ee la og yahay kuwa aan la ogeynin markaa way soo baxayaan oo waraysiyaday ku soo baxayaan waa hagaag daawadayaal haddii aynu intaasi ka soo gudubno waxaynu kusii durkaynaa gunaanadkii warbixinteenna waxa aan jeclahay bal inaad ila daawataan talooyinkan soo socda marka insha allah waxaan qof kastoo mas-uul ah xasuusinayaa in furiinku ciyaar u dhacayo aan u baahannahay in laga gudbo arrintaas anigu waxaan talo ku darsanayaa waxaan odhan lahaa labadii isqabaa hadday khalad yar isku qabtaan yaanay kala tegin hadday kala tagaan ubadka ay dhaleen baa meesha ka baxaya oo sidaan iminka anigu ahay oo kale ayay noqonayaan marka taladaas ayaan ku darayaa waxaanan odhan lahaa ha kala tegina ee noloshiina isla sii qabta intaasaan ku darayaa
aad baad mahadsanta